السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sheeko jacayl oo aad u xiiso badan, calaf iyo jacayl. 11 galabnimo ayay si kadis ah u kulmeen Khaalid iyo Hudo, isla markaana waxay ku kulmeen goob hotel uu Khaalid ka shaqayn jiray, wuxuuna ahaa waiter. intaan muuqaalka bilaabin ka hor, haddii aad nagu cusubtahay subscribe haddaad ka mid tahay asxaabta like dhac ku sii si aan u soo badno muuqaalada noocan oo kaleeta siina gaarsii saaxiibadaada. mahadsanid. haddaba aynu galno muuqaalkani. Khaalid wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan, wuxuuna ka mid ahaa ardayda lagu jecel yahay jaamacadda. Khaalid waa bulshaawi xadaari ah. Khaalid waa danyar balse kama muuqato oo qalbiga ayuu qani ka yahay. Khaalid gelinka hore wuxuu tagaa jaamacadda, gelinka dambena wuxuu ka xoogsadaa hotelkan. Hudo marnaba kama filanaynin halkan oo kale inay ku aragto, balse waxay u qoshooday sidii iskugu kalsoon yahay inuu ilaashanayo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa. soo markii hore qalbiga iskala hadashay oo ay tidhi Khaalid muuska ka qariyo. Khaalid wuxuu aad ugu farxay aragtida Hudo, wuxuuna arkay inay tahay fursad dahabi ah, sababtoo ah wali qalbiga Khaalid muusan soo bandhigin ujeedkiisa uu ku doonayo Hudo. Khaalid wuxuu isku dayay inuu Hudo u sheego inuu arrin muhiim u leeyahay, balse waxaa jaaniskii ka beeldareeyay kana dhacay Hudo habaryarteeda oo la socotay markaasi meel uu ka marana uu waayay. Hudo waa gabar alle ku manaystay qoro. Hudo waa gabar xishood badan oo hadal gaaban, isla markaana waalidkeeda ku soo koriyeen tarbiyo wacan oo toosan, oona dhalisay inay noqoto gabar had iyo jeer asturan. waa hablaha dhifka ah ee ugu ixtiraamka badan jaamacadda. koox uu Khaalid ka mid yahay waxay abaabuleen in ardaydu u baxdo dalxiis, sidaas darteed Professor Aadan arrintaa uu ansixiyay uuna ka ogolaaday dalxiiska. 5 subaxnimo ayuu Khaalid u kacay tabaabusho iyo isdiyaarin oo isku diyaarinayo dalxiis la magac baxay dalxiiskii caashaqa. waa koox dhalinyaro ah isla markaana wada dhignaya jaamacadda, waxayna ka koobnaayeen 15 wiil ilaa 10 hablood. waa dalxiis si farshaxnimo leh loo soo diyaariyay. waxaa kooxda dalxiiska hogaamiye ka ahaa professor ka mid ah jaamacadda ama macallimiinta. intii ay jidka ku sii jireen waxay gudaha baska ku bilaabeen hadallo kaftan. dhammaan waa dhalinyare, waana farxadooda maalintaas. labiska quruxda badan ee ay xidhan yihiin. muddo 3 saacadood ayay ku qaadatay inay gaaraan meesha ay u socdaan. markay dhammaantooda dhulka cagaha dhigteen, waxay indhaha la raaceen muuqaalka yaabka leh ee uu dhulka leeyahay, iyo neecawda macaan ee ka dhacaysa. waa goor barqa ah, jawiguna aad ugu macaan yahay. Professor Aadan wuxuu ardayda ku wargeliyay inay fasax u yihiin inay bilowdaan dalxiiskooda. la soco sheekadani qaybteeda xigta. maanta muuqaalkeena halka ayuu ka gaay. intaanu ku kulmi doono tani muuqaalkeena xiga. fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.